Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa qasriga madaxtooyada ku meel gaarka u ah dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee magaalada Baydhabo ku qaabilay wafdi uu hogaaminayay agaasimaha taakuleynta xafiiska xogeyaha guud qaramada midoobay Atul Kare. Raxiim wayba geeka booqasho ka kooyay magaalada Baydhabo caasimadda ku meel gaarka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya wafdi uu hogaamiyo agaasimaha waaxda taakuleynta xafiiska xogeyaha guud ee qaramada midoobay Atul Kare iyo wafdi uu hogaamiyo oo qaybaha shalduun oo UN kan iska jiraan booqashada iyo ka kooyan iyo meel raay wayba shir lawal dhadana madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo golihiisa wasiirada qaar ku mid ah wafdiga ujeedadiisa kuwiin Koonfur Galbeed iyo ka kooyan kumid hayti arrimaha doorashooyinka iyo amniga doorashooyinka iyo saasoo kala mashaariicda UN-ka tukuwada magaalada Baydhabo sigaare wafdiga iyo meel raay soo hogaamiya Atul Kare mayba madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya aan kuma hadnagana doorku isu kala haay mise ku qaadadi meel raay shirarkii doorashooyinkii iyo nidaamkii doorashooyinka in badan meel raay Soomaaliya sanadkan ku socday iyo doorku madaxweynaha kala haay oo meel raay dhexaadinta iyo anshaanowka iyo sidii la hirgelin lahaay mesela iska afgorada lahaay doorasho guud ahaan bulshada Soomaaliyeed wada dhanta doorku kula haay iidan kuma hadnagan iyo guud ahaan Koonfur Galbeed isla saasoo kale mayba iidan kuma hadnagana sida Koonfur Galbeed iyo diyaaranka tamar walba ani meel raay doorashada la qabada si oo nabadgeliye oo meel raay cadaaladena meel raay qabsoontii iidan kuma hadnagan isla wayba meel raay kumid hay taarimaha doorashooyinka ku hadaleen goobihii la qabada lahaay oo kumid ah Baydhabo iyo Baraaw maadaama dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ka qabado doonto UN-ka qaybtiis ku qaada doono ay meel raay fududeynta arrimaha meelaha ka qabado iyo saasoo kala meel raay amniga doorashooyinka meelihii la qabada lahaay in la hagaajiyo wayba kumid haytay waxyaabaha ay ku hadlayaan mashaariicda iyo ku hirgeliyeen Koonfur Galbeed oo ku horeeyay kulanka ayaa sidoo kale waxa qayb ka ahaa wasiiro xildhibaano iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Madaxweyne Laftagareen ayaa warbixin guud ka siiyay wafdiga xaaladda guud ee deegaanada Koonfur Galbeed oo sidoo kale xusay horumarada laga sameeyay dhanka arrimaha bulshada.